geeyey salawaatu rabbi wa salaamuhu calayh. maanta waxaynu arki doonnaa walaalayaal dadkii wanaagsanaa oo sulaxada ahaa siday ugu liibaaneen salliga nebi muxamed salawaatu rabbi wa salaamuhu calayh. meesha waxaynu ka fahmi doonnaa nebigoo lagu salliyo markaan adillada iyo nusuusta isku caddayno inuu yahay wax aad u qiimi badan. jawharta bahasha la yidhaahda xataa inuu ka sii qiimi badan yahay oo la yidhaahdo waxyaalaha qiimiga badan lagu tiriyo walaalayaal. sidaynu la wada soconno ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu nagu amrayaa qur'aankiisa inaan nebiga ku sallinno oo salaanno salawaatu rabbi wa salaamuhu calayh. ilaahay wuxuu ka hormariyey amridda uuna amraya dadka mu'miniinta ah malaa'igtii iyo ilaahay oo nebiga ku salliyey salawaatu rabbi wa salaamuhu calayh. qaala tacaala ina allaha wa malaa'ikatahu yusalluuna cala annabiy ya ayuha aladiina aamanuu salluu calayhi wa sallimuu tasliiman. ilaahay iyo malaa'igtiisu waxay ku sallinayaan nebi muxamed dushiisa salawaatu rabbi wa salaamuhu calayh. yaa ayuha aladiina aamanuu war kuwa iimaanka laga helayow salluu calayhi wa sallimuu tasliiman. nebiga salaama isla mar ahaantaasna nebiga ku salliya salawaatu rabbi wa salaamuhu calayh. waxaa la yidhi malaa'igta salliga nebiga ay ku sallinayso oo istikfaar baa la yidhi saan culimmada ka aragnay. salliga annagu aan ku sallinaynana waa duco nebiga aan u ducaynayno. waxaa ugu yar markaad leedahay allaahuma salli calaa muxamed macnaheedu waxaa weeye ilaahayow nebi muxamed u naxariiso salawaatu rabbi wa salaamuhu calayh. salliga ilaahay uu ku sallinayana waa raxmo iyo naxariis nebiga lagu soo dejinayo weeye walaalayaal. marka salaada nebiga lagu sallinayo تكفر بإذن الله تعالى ذنبا عظيما وتوثر عزا وتكريما ومعناها اللهم زده شرفا وتعظيما ورفعة وقدرا. صلي النبي لغو سلينا يا إخوة الإسلام والإيمان waxaa lagu dhaafaa ilaahay idankiisa dunuub fara badan baa lagu dhaafaa sidaynu adillada iyo nusuusta aynu ku arki doonno. waxay qofka dhaxal siisaa nebiga salligiisa hadduu badiyo karaamo iyo wanaag iyo sharaf bay dhaxal siisaa. macnaha markaad nebiga ku salinaysid waxaa loola jeedaa allaahumma zidhu sharafan wa tacdiiman wa rifcatan wa qadaran. salaadu waa saa ilaahayow nebi maxamed u ziyaadi sharaf, ilaahayow nebi moxamed u ziyaadi tacdiim iyo weynayn, ilaahayow nebi moxamed u ziyaadi rifca iyo korayn, ilaahayow nebi moxamed u ziyaadi qadar iyo sharaf. sidaasaa macnaheedu uu yahay walaalayaal. wa ama atasliimu famacnaahu sallamahu mima yakhaafu calaa ummatih. bimacnaa waxa weeye nabadgelyo laga nabadgelinayo oo nabadgelyo lagu siinayo ummaddiisa salaamta nebiga la salaamayo salawaatu rabbi wa salaamuhu calayh. marka waxaa la doonayaa in la badiyo salliga nebiga lagu salinayo salawaatu rabbi wa salaamuhu calayh. maxaa yeelay waxaa nebiga ka sugnaatay sala allahu calayhi wasalam nebiga inuu yidhi salluu calaya fa ina salaatakum calaya zakaatan lakum was'alu allaha tacaala liya alwasiila. qaaluu ya rasuula allahi wama alwasiila قال أعلى درجة في الجنة لا ينالها إلا رجل واحد وأنا أرجو أن أكون ذلك الرجل بإلى نبينا صلى الله عليه وسلم. بل حديث كان في ريه أحبابنا الكرام نبينا وحليه وردش إذا كسو صليا صلي قاعد قسلين إيسان صوب ضيا صلاة قاعد قسلين إيسان وحيتها الذكاء يظهر ويه وقلوبتنا لغو ظاهرين إياه. ilaahayna waxaad macnaha weydiisaan ood ii weydiisaan darajada la yidhaahdo alwasiila. saxaabada nebigu marka way weydiiyeen rasuulka waxay ku dhaheen wama alwasiila yaa rasuula allah.
رسولك إلهي ووصيلة ومحي درجة سي نبي ويديا صلى الله عليه وسلم مركز نبي وحكو جوابي ودرجة مدى أقصى الرئيسو جنة دحدة درجة سنا مجارو إلا رجل واحد هل شخص موياني أو نين موياني قفك لو قار يا ماله نبي وحكو دميسي صلوات ربي وسلامه عليه وأنا أرجو وحرجينا يا أن أكون ذلك الرجل إن النقض شخصي درجة قارية تاسا رجينا يا أبو نبي محمد صلوات ربي وسلامه عليه علماء الإسلام كوحي هذا ولا ليال نصوص يا حديث النبوي هدات كو أركتد نبي قولها يا وحسا رجينا يا نبي رجديس ومحقق ويه بمعنى أرنتا وإسكوه با نبي وشيغا صلى الله عليه وسلم markuu leeyahay nabiga waxaan rajaynayaa darajada anigu inaan helo darajadaas waa shafaacada cudmada oo nabiga la siiyay sallallahu alayhi wasallam waxaan la soconaa markay dadku dhibtoodaan maalinka qiyaamada anbiyada ilaahay in fara badan oo kamida la soo maro mid walba uu leeyahay anigu darajadan malihi aakhirka u dambeeya nabi maxamed baa loo imaanayaa salawaatu rabbi wa salaamuhu alayhi nabiga wuxuu leeyahay ana iskale shafaacadan shafaacooyinka waxa jira shafaacooyin fara badan laakiin kuwaas waa yaryarihiin sayyid usmaan baa shafaacaya dad wanaagsan oo saxaabadii kamid ah shafaacaya laakiin shafaacadani waa shafaacadii bimaana waa kiigi ama furihi ummadan lagu kala fasrinayay oo dhibaatada looga qaadayay qaarna loo dareerinayay jannada ilaahay qaarna loo dareerinayay cadaabtii ee loo dareerinayay subhanahu wa ta'ala شفاعة نوعاسة شفاعة العظمى بالليل هذا نبي اسكال صلوات ربي وسلامه عليه أحد النبي أهين شفاعة مقادا كرا إخوة الإسلام والإيمان قف حتى من العسن كرا معناها مجرو قف النبي محمد أهين مالك ما إرقو إلهي حقي سأما أذكره إلا هدو حتى أؤذي إرقدي سوال سعرينيا معايا لي شفاعة النبي وإسكال صلوات ربي وسلامه عليه ساسو مركا نبيgu wuxuu leeyahay waxaan rajaynayaa rajulkaas inaan noqdo darajadaas sare oo jannada ku dhex taala mudanaya shakhsiga inaan noqdaan rajaynayaa buu yiri nabi maxamed salawaatu rabbi wa salaamuhu alayhi ee salliga aad igu soo salinaysaan badiya oo si fiican igu soo saliyo leeyahay nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam walaalayan waxyaalaha ajabta badan oo salliga nabiga uu leeyahay waxa kamid ah ikhwata al-islaam wal iimaan حكماتك إلهي وجدي عز وجل نبيك مركا لغو سلينيو وانغو انكو سلينينو واقتداء يكديشان إلهي كدينينا سبحانه وتعالى محايا لي إن الله وملائكته يصلون على النبي إلهي ملائكتيسو نبيك يكو سلينيان محايا يد لغو ختمي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ركوع إيمانك لقاه ليو نبيك السلام كنا سليا لي صلوا عليه وسلموا تسليما سيقوين فربضا او اينو اركي دونا نبيك اللوغو سلينيا انك السوسيقة اللي يراد صيقة إبراهيمية اي اقفض لبضانتاي حداد ما انتو دن كعل علي سيد اللهم صل على محمد عاودا تصبح انتا قادتين وفضل بضن بده ليس iswidan baa waxa laga sheegay waa dhexdaasa qofkii nabiga intaaso kun ama intaaso jeer ku saliya jahannamu qarka u istaagaya fal iyad billah kama islaam ba sheekh islaam ma ha kaaso diinti islaamka waa ka baxay banaanku ka yaala nabi muhammad salligiisa waan arki doono fadaa'ilka ku soo arooray ninkii wax badan ku saliya ma jahannamu u dhawaanaya maya walaalayaal waa dambi aad u weyn weeye marka nabiga salligiisa fadaa'ilka badan buu leeyahay waa ku dayasho aan ku dayanayno ilaahay subhanahu wa ta'ala marka nabiga ku salinayno xikamaadka ilaahay u jideeyay bay kamid tahay walaalayaal waa mukaafa'a iyo beegtoonaan aan u beegtoomayno nabiga xaqiisii xuquuqdiisii khalqigiisa uu ku lahaa ilaan rasuulku xuquuq fara badan buu nagu leeyahay salawaatu rabbi wa salaamuhu alayhi lawla an nabi muhammad rasul saari lahayn نور كان ما أنت أن اسكو أخينا يدين تنمي يجري لهيد ولا ليال ومي نبيكو وليخرجكم من الظلمات إلى النور ظلمات كي مقديال كي بو أمد كساري
nuurkii iyo nafaxaadkii iyo khayrkii buu u saaray nebi moxamed salawaatu rabbi wasalaamuhu calayhi walaalayaal dulumaadka mugdiyaalka waa la jamciyey baa layidhi laakiin nuurka hal baa laga dhigay baa layidhi mufrad xikmadda ku jidha maxay tahay mugdiyaalku iyo gaalnimadu iyo shirkiyaadku meelo fara badan bay ka soo baxaan laakiin nuurul iimaanku hal dariiq buu ka soo baxaa sidaasaa waxaa loo yidhi liyukhrijakum min adulumaati ila nuur rasuulku wuxuu idinka saarayaa mugdiyaalka wuxuuna idiin saarayaa nuurka saasuu ilaahay leeyahay subxaanahu wa tacaala walaalayaal nebiga waxyaalaha inaan ku sallinno macnaha uu noogu mudan yahay waxaa weeye oo ka mida ikhwata alislaami waaliimaan nebigu waa waasidada annaga noo dhaxaysa wey nebiga annaga iyo ilaahay nebi moxamed baa noo dhexeeya salawaatu rabbi wasalaamuhu calayh hadda qolooyin baa waxay leeyihiin annagu ilaahay baan toos ula manaajoonaynaayo oo nebiga uma baahnin inaan marno ama ilaahay inaan cidna u marno macnaha ma doonayno kalaa sheekh kalaa diinteennu waxay leedahay wax la yidhaahdo sanad ama silsilay leedahay nebi moxamed mucallim buu lahaa mucallimkiisu jibriil buu ahaa saxaabadu mucallim bay lahaayeen mucallimkooda nebi moxamed buu ahaa alimaamu abu xaniifa iyo maalig iyo shaafici mucallimiin bay lahaayeen qof inta diintii ku soo degtay iska socda ma jiro sheekh laakiin qof walba wuxuu leeyahay mucallim waxbara ka bacdina macnaha daraasaynta iyo khayrkaasuu sii faafiyaa muhiimaddu waa taas wey marka rasuulku waa waasidada cudmada oo noo dhaxaysa maxaa yeelay nicmo walba oo na soo gaartay nebigaa sabab u ah inayna soo gaadho salawaatu rabbi wasalaamuhu calayh waxyaalaha nebiga marka lagu saliyo darajaadka uu ku helayo waxaa ka mid ah ikhwata alislaami waaliimaan dawaami alrifca waalkamaal fainahu maa min kaamilin ila wa cinda allahi akmalu minhu nebiga mar walba aad ku salisid daraja kor lagu sii qaadayaa nebi moxamed salawaatu rabbi wasalaamuhu calayh maxaa yeelay qof ma jiro kaamil ah ilaa waxaa ka sii kaamilsan oo ka sii qiimi badan nebi moxamed salawaatu rabbi wasalaamuhu calayhi walaalayaal aayadda daahirkeedaana caddaynaysa nebiga in darajaad kor lagu sii qaadayo marka salaada iyo nebiga salligiisu fadaa'ilkaasay leeyihiin walaalayaal hadda culimmada islaamku waxay yidhaahdeen nebiga oo lagu salliyo bacdigood waxay dhaheen waa waajib waajibaani cala almu'miniin wa hada biitifaaqi alculamaa gobolkood maba ahaba culimmada islaamka waxay isku waafaqeen nebi moxamed oo lagu salliyo marka magaciisa la soo qaado waa waajib laakiin culimmadu maxay isku khilaafeen waxay isku khilaafeen waqtigay isku khilaafeen culimmada islaamku gobol culimmada ka mida sida imaamkeenna weyn محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه الإمامنا الأعظم wuxuu yidhi waxaa salliga nebigu waajib yahay tashahudka ugu dambeeya salaada marka la tukanayo markaa waa waajib nebiga inaad ku salaysid ataxiyaadka dambe salaada haddaad ka tagto salliga nebiga oo aad salaadiisaa ku tukato salaadaada waxba kama jiraan wax ka jira male macnaha salaadaada waa rukni ka mida min arkaani salaad inaad nebiga ku salliso ataxiyaadka dambe oo salaada saasuu maray alimaamu shaafici ilaahay raadi ha ka noqdeen culimmada gobolna waxay yidhaahdeen salligan macnaha waqtigiisu wuxuu waajib yahay bay dhaheen oo ay macnaha gobolkoodna ay tibaaceen qofka cumrigiisa mar ka mida qofka cumrigiisa mar ka mida inuu nebiga markaa ku salliyo salawaatu rabbi wasalaamuhu calayh gobolkoodna waxay yidhaahdeenba fii kulli majlis makaan walba qofku inuu nebiga ku salliyo wakhtigii ay ku qaydeen bay dhaheen waa waajib culimmada macnaha qaarkood ilaa wakhtigay isku khilaafeen nebiga in lagu salliyo waajibnimadiisa mayse isku khilaafine gobolkoodna waxay dhaheen culimmada islaamku tajibu salaatu calayh mar walba nebiga in lagu salliyaaba waajibay dhaheen culimmada qaarkood saasay culimmada islaamka u kala baxeen maxaa yeelay kullamaa dakara ismuhu shariif mar walba oo magiciisa sharafka badan nebiga la soo qaado in lagu salliyo waa waajib bay dhaheen ikhwata alislaami waaliimaan maxaa yeelay waxay dhaheen nebiga wuxuu yidhi salawaatu rabbi wasalaamuhu calayh albakhiil man dukirtu cindahu falam yusalli calay bakhiil waxaa la yidhaahdaa qofka marka magiciisa agtayda lagu sheego aan igu sallin
waayahan dambe waxaad arkaysaaba maanta oo dhan nebi maxamed ku hay bishimihii maba la kala qaadayaba bishimihii wax kala furaya macnaha ma laha qofka markaa weydiisa oo tiraahdi war ma nebigaa necab tahay maxaa si ka aniyow wuxuu leeyahay maya looma baahna nebiga in lagu salliyo salawaatu rabbi wasalaamuhu calayh sheekh kalla waa aafa weeye waa aafa nebiguna muxuu yidhi bakhiil waxaa la yidhaahdaa qofka inta magiciisa agtayda lagu xuso aan markaa igu sallin buu yidhi nebi maxamed salawaatu rabbi wasalaamuhu calayh marka salliga nebiga fadaa'ilka noocaasa iyo khayraadka noocaasuu leeyahay iyo qaabka noocaasa nebiga lagu salinayaa salawaatu rabbi wasalaamuhu calayh waxaa soo aroortay ikhwata alislaami waaliimaan bacdu riwaayaat gobolkood waxaa ku soo arooray ina lilmusalliina calaa sayidi almursaliin 10 karaamaat qolooyinka nebi moxamed ku salliya salawaatu rabbi wasalaamuhu calayh waxay leeyihiin 10 karaamo 10kan darajaad oo karaamaadka oo aan sheegi doonno buu ilaahay ku manaystay subxaanahu wa tacaala ixdaahunna salaatu maliki alghafaar nebiga markaa ku sallisid midda koobaad waxaa weeye allaha ghafaarka ah baa kuu naxariisanaya kulligeen soo naxariis uma baanin salliga nebiga hala daldala ikhwata alislaami waaliimaan taasaa muhiima والثانية مدى اللباد شفاعة النبي المختار نبي محمد با الشفاعة قفك النبي كسلي صلوات ربي وسلامه عليه والثالثة مدى صدحاد الاقتداء بالملائكة الأبرار وكذا يشقفك وكذا ينيو ملائكة باريين إلى الآيات محالك حسي malaa'igtu nebiga waa ku sallisaa salawaatu rabbi wasalaamuhu calayh salligaan marka nebiga aan ku sallinayno ilaah iyo malaa'igtiisaan kaga dayanaynaa ikhwata alislaami waaliimaan marxaba waalraabicatu midda afraad mukhaalifatu lmunaafiqiin qofka nebiga ku salliya oo salligiisa badiya munaafiqiintuu khilaafaya qofka munaafiqa ah nebiga salligiisa ma badiyo waa laysa soo galay sheekh salliga nebiga haddaadan badinba dee sifadii nifaaqa kugu sifoobaysa waa khatar wey laakiin salliga nebiga haddaad badisid munaafiqiintii waad khilaaftay iyo kufaartii iyo gaaladii mukhaalifatu lmunaafiqiina waalkufaar waalkhaamisatu midda shanaad maxwi alkhadaaya waalawsaar waxaa lagu baabi'iyaa oo lagu tirtiraa salliga nebiga dunuubta iyo dembiyaalkaa lagu tirtiraa ikhwata alislaami waaliimaan dunuub baan la cuslaanay waxaan filayaa raqiibun wa catiidun waa labada malagoo garbaha naga saaran waxyaalo fara badan bay naga qoraan oo xasanaad iyo sayi'aad ah dunuubtaana cuslaysay marka salliga nebiga haddii la badiyo waa lagu dhaafaa ikhwata alislaami waaliimaan inkastoo dee dunuubtu ay kala waaweyn tahayo kabaa'ir iyo saqaa'ir ay kala leedahay mid walba maraaxishii loogu talagalay loo marayo ikhwata alislaami waaliimaan marxaba والسادسة midda lixaad qadaa'u alxawaa'ij waalawtaar xaajooyinka iyo danaha kaa xirxiran oo dhan salliga nebiga haddaad badisid waa furfurmayaan caaday u furfurmayaan waxaa laga yaabaa dhibaato fara badan inay ku hayso waxaa laga yaabaa jismigaaga xanuun badan inuu ku jiro waxaa laga yaabaa awlaad ilaahay inuusan ku siin subxaanahu wa tacaala ilaan asagaa awlaadda bixiye waxaa laga yaabaa aafa iyo musiiba inay kuga habsato waxaa laga yaabaa shacba sawmaal 18 years baaba dhibaata nugu habsatayba oo waxaan isku laynaynaa alcasabiya waalqabaliya oo aan diinta islaamka madkhal ku lahayn salliga nebiga haddii la badiyo aafaadkaas oo dhan ilaahay baa qaadaya subxaanahu wa tacaala walaalayaal والسابعة midda toddobaad tanwiiru الdawaahiri wاlasraar nebiga salligiisoo la badiyo waxyaalaha fadliga oo laga helo waxaa ka mid a waxaa ku nuura korka iyo baadinka ku nuura daahirka iyo baadinka baa qofka u nuuraysa markuu salliga nebiga badiyo salawaatu rabbi wasalaamuhu calayh والthaaminatu midda sideedaad annajaatu min annaar salliga nebiga waxaa looga koraa oo looga badbaadaa cadaabka eebe subxaanahu wa tacaala walaalayaal والtaasicatu midda sagaalaad dukhuulu daari اlqaraar
salliga nebiga wuxuu keenaa maxaa yeelay qofka lagu salinayaa nebi moxameda nebi moxamed markaa ku salliso ilaahay uu raadi kaa noqdana daarulqaraar meeshii lagu sugnaanayaa ilaahay ku gelinayaa subxaanahu wa tacaala oo jannada eebba ah taasoo markii la sifaynayay la yidhi maa laa caynun ra'at walaa udunun samicat walaa khadara calaa qalbi bashar waa waxaysu ili arag dhagu aysan maqal qalbi bini aadanna aan ku soo dhicin saasaa la yidhi markii jannada axwaasheeda laga sheekaynayay ikhwata alislaami waaliimaan waalcaashiratu midda tobnaad salaamu alcasiizi aljabbaar allaha qaalibka ahoo addoomihiisa dirqiya oo cajabta badan baa salaam oo ku nabadgelinaya caza wajalla walaalayaal nabadgelyaad ka helaysaa ilaahay xaggiisa salliga nebiga markaa badisid salawaatu rabbi wasalaamuhu calayh nin shaacira wuxuu yidhi asagoo nebiga ammaanaya salliga iyo fadliga iyo qiimiga uu leeyahay nebiga asagoo ku ammaanaya baa wuxuu yidhi haada الnabiyu muxamed khayru اlwaraa wanabiyahum wabihi tasharafa aadam huwa fi اlmadinati thaawiyan bidariixihi xaqan wayusmacu man calayhi wayusalimu وإذا توسل مستضاف باسمه زال الذي من أجله يتوهم صلى عليه الله جل جلاله ما راح حاد باسمه يترنم سيدا سير إخوة الإسلام والإيمان نبي صلى سلقي سكوى مانا يشاعر كان وحيري هذا النبي محمد خير الورى كان وحيري والنبي محمد khalqiga ilaahay uu abuuray kii ugu khayrka badnaa wey waa nebi ilaahay oo uu doortay oo ilaahay uu sharifay laga soo bilaabo nebi aadam oo dhashiisa ka mid ahaa markii lagu tawasulo oo magiciisa la soo qaado wuxuu xaq u leeyahay nebigaasu inuu maqlo qofka ku tawasula nebigu saacaddan hadda waxaa axaadiista ku sugan sixaaxa ah oo sixada badan nebiga habeenka jumcada iyo maalinka jumcada maantoo kale iyo habeenkeedii la soo dhaafay nebiga marka lagu salinayo nebiga dhagihiisu kugu dhegaysanaya maalmaha kale laakiin maxaa gaarsiiya malaa'ig baa gaarsiisa ikhwata alislaami waaliimaan laakiin mushaafahatan ama layf ama mubaasharatan haddaan ma hadda dhaho allahuma salli calaa muxamed nebi maxamed dhagihiisu igu maqlayaa salawaatu rabbi wasalaamuhu calayh marka waxaa laga yaabaa adigu inaad miisaantoo dhahdo nebigu waa dhintaye see buu dhegihiisa igu maqlayaa hadda diintu ma caqli baa sheekh diintu waa nusuusta iyo adilada soo aroortoo la raaco aayaadka qur'aanka axaadiista nebiga ijmaaca culimada islaamkoo la tibaacoo la raaco wey maxaa dhahaysaa haddii lagu dhaho nebiga axaadiis bukhaari iyo muslim baa ku soo arooray marka lagu salliyo jumcada habeenkeeda iyo maalinkeeda nebi maxamed dhegihiisuu nagu dhegaysanaya salawaatu rabbi wasalaamuhu calayh waxaa laga yaabaa inaa istiraado nebigu waa dhinteen noloshiisu waa maxay haddaba rasuulku nolosheenna nolol ka gedisan buu ku jira sideedana waxaa jira nolol la yidhaahdo xayaatulbarzakhiya xayaatulbarzakhiya nolol qubuuraha dhexdiisa looga noolaado oo magacaas la yidhaahdaa jidha laakiin haddaadan garanayn waxaas cilmigaaga uusan gaarsiisanayn adiga waxaa leedaha warkan waa quraafi weeye ama shirki buu ku jiraa laakiin carabtu waxay tidhaahdaa markay mahmahayaan alcilmu alqaliil yukhalkhilu saaxibuh cilmigu hadduu yar yahay saaxiibkiis warwareer buu ku ridaa marka adiga diintii islaamka laba xadiid iyo hal aayadaa ka soo baratay culimmadii islaamka iyo kutubtii islaamkana meeshan ay tuuran yihiin wixii lagu sheegay waxba kama jiraan intaad dhihileed anigu ma arag intaad edabsan lahayd oo dhihileed anigu ma aqaan ma jiraan waa shirki iyo quraafi waa gaalnimo iyo kufri waa bidcanimo sheekh waxaas yaa kaa yeelaya marka waxaas wax kaa yeelaya macnaha ma jiraan marka nebiga noloshaasu ku jiraa salawaatu rabbi wasalaamuhu calayh haddii lagu tawasulana